guddida dhismaha wadada Guban iyo Xeeb ayaa deeq lacag ka gudoomay ururka Al-Aamin oo ay ku midoobeen hablo muxsiniin ah oo kamid ah jaaliyada Soomaaliland ee deegaan dalka Holland. deeqdan oo dhamayd $295 ayaa qayb ka noqon doonta taakulada iyo kaalmada ay bulshooyinka Soomaaliland la barbar joogan hirgelinta iyo dhamaystirka dhismaha wadada Guban iyo Xeeb oo siyaabsamiya uga socota deegaanada bariga gobolka Saaxil. Dahabo Cabdi Cilmi oo ka wakiilahayd hablahaasi ayaa ka warantay muhiimadda ay leedahay ku darsiga arrimaha khayraadka ee wadooyinku ka mid ka yihiin qaaraanka, iyagoo u mahadnaqay hablihii u soo diray iyo guddida ku howlan dhismaha wadadaba. maalintan lacagta ururinayna namba waxay tiri waan weynaan lahaa haddaan arki lahaa lacag ka tagtay Holland ka tagtay oo Burco joogta oo la sheegay alxamdulillah noqon maysatii dambeysay ee waati ugu horeysay iminkana waa wareejinaynaa waxaan ku wareejinayaa Injineer Faarax Xuseen oo kamid ah guddida dhismaha wadada Guban iyo Xeeb ayaa isaguna duco dheer kadib ka warbixiyay hawsha wadadan isagoona fariin u diray bulshadu inay ka qayb qaataan wadada, waxaana uu si dareen looga hadlay dhibka ay kala kulmaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi wadadan ka hor intii aan loo kicin. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Dahabo Cabdi Cilmi oo ka wakiila hablaha Al-Aamin ee reer Holland ee jaaliyada reer Soomaaliland reer Togdheer ee isa soo xilqaamay ee lacagta soo dhiibay. lacagtii waa taas oo aan ka gudoonay oo waa ka haynaa waana intaas hore ay Dahabo u sheegtay. waxaanu leenahay ilaahay halkii aad ka soo saarteen wax ka khayr badan haydin geliyo if iyo aakhiraba ilaahay haydinku barakeeyo. ilaahay ubadka iyo reerka iyo nabadgelyadaba mid walba ilaahay haydinku roonaado. wadadaas iyada waa la wada ogyahay, dad baa ku xidhan, dad fara badan baa ku xidhan oo ehelkeena ehelka reer Soomaaliland iyo muslimiin baa dadka in loo gurmado. way ka ajar badan tahay in masaajid la dhiso, way ka ajar badan tahay dadkaas iskuul ma laha, caafimaad ma laha, tacliin ma laha, gaadiid ma laha. dadkaasi waa mana dhiman mana noola. dhismaha wadada Guban iyo Xeeb ayaa u baahan cid kasta oo jecel khayrka inay wax ku darsadaan. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.